بسم الله الرحمن الرحيم أرضي سود وهذا ومركلة يو عتوكيني لبعض أينو بلعب دونا أنت أنا عتوكيني لبعض بلعب واحد دنيا سؤالها هل كان بقرن حكوتشرين امتحانات دي باست بيبرس كيسوميلا national examination English paper 1 year 2 سؤال هل كان بقرن وكلا بلاغة محا قرن he is dash then his friends dabeedna 2023 paper 2 bay su'aasha imtixaankii ku jirtay afartan option baa la kala dooranaya waxa la kala dooranaya richest iyo richer iyo rich iyo riches marka afartan jawaabta saxda ah si aynu haleelno waa inaynu cashirkeena maanta isla fahanaa tan oo kale your daughter is dash then my daughter waa 2022 paper 1 afartan option baa la kala dooranaya waa short shorter iyo more short iyo shortest tano waa maxay Ahmed is the dash boy in the class ma waxa sax taller mise tallesti mise more tall waa casharada ugu muhiimsan ee aad ugu soo noqnoqday imtixaanada sida aweel cashirkeenan maanta ayaynu si fiican doonayna inaan isku fahno dabeedna in su'aalaha iyo kuwa la midkaaba ka shaqeyno waxa jira unit 1 cutubka koobaad casharka ku jira magaciisa waxa loo yaqaanaa comparison of adjectives waxa la yiraahdaa comparison of adjectives ayaa la yiraahdaa by the end of this lesson dhamaadka casharkan arday kasta waa inuu awood u yeesho inuu sharaxi karo waa maxay comparison of adjectives imsa qaab baa wax la isku barbardhigaa sidee baa loo sameeyaa isbarbardhigga waxyaabaha kala duwan inahaas baan doonay cashirkeena inaan ku dhigano marka ka u horeeya hadii aan ka bilaabo waxaan ka jawaabaynaa waa maxay comparison hagaas erigaas aan ka bilaabaynaa waxaan ka jawaabaynaa what is comparison waa maxay comparison comparison of Somali waa isbarbardhig waa is how we compare waa saynu isku barbardhigayno laba qof laba shay ama laba xayawaan oo isku mid ah ama kala duwan waxaan isbarbardhigaynaa similarna way noqon karaan differentna way noqon karaan inta hadii aan qoraal inoogu bedelo waxaan ka bilaabaynaa comparison is how we compare waxaan leenahay comparison is how we compare waa sidaynu isku barbardhigayno laba qof two persons laba qof laba shay ama laba xayawaan waxa la isbarbardhigayna it can be similar isku midna way noqon karaan or different wayna kala duwanaan karaan labada wax ee la isbarbardhigay it can be similar or different marka eriga comparison af Soomaalian saas uu noqonaya waxay noogu xigayaa eriga adjective af Soomaali waa sifo si kala hadaynu qeexno waxaan leenahay waa kelmad macna ku darta magac badanaana waxay timaadaa magac ka hor marka waxaan leenahay adjective is a word where eri which adds meaning to a noun okay which adds meaning to a noun waxa uu macna ku daraa magac and always comes before a noun badanaana magac ka hor bay yimaadaan haddaba adjective ku muxuu inoo sheegaa it tells us ama it shows us wuxuu ina tusaa quantity ayuu inoo sheegi karaa soo kale wuxuu inoo sheegi karaa quality wuxuu inoo sheegi karaa size wuxuu inoo sheegi karaa shape wuxuu inoo sheegi karaa color soo kooba or anything else of noun ama wax kasta oo magac ku saabsan or anything else of noun wuxuu ka waramaa wax walba oo magac ku saabsan buu adjective ka sheekaya waayahay haddaba waxaan imika wada hadlaynaa imsa qaab ayaa wax la isu barbardhigaa imika waxaan isla garanay ereyga comparison iyo ereyga adjective
hadda waxaan doonaynaa in isla yar fahanno imise qaab ayaa wax la isku barbardhigi karaa waxaa jira saddex nooc oo isbarbardhiga waxaan leenahay there are waxaa jira three types of comparison saddex nooc oo isbarbardhiga ayaa jira three types of comparison of adjectives marka wax la isbarbardhigayo saddex nooc ayaa la isticmaalaa saddexdaa nooca koobaad haddaynu soo qaadano waxaa la yidhaahdaa simple degree waa darajada koobaad ee wax la isku barbardhigo ayaa waxaa loo yaqaanaa simple degree waay darajada labaad ee wax la isku barbardhigaynu soo qaadanaynaa iyadana waxaa la yidhaahdaa comparison degree comparative degree baa la yidhahdaa waxaa la yidhahdaa comparative degree waa darajada labaad ee aynu wax isku barbardhigayno darajada saddexaad ee aynu wax isku barbardhigayno waxaa la yidhahdaa superlative degree waxaa la yidhahdaa superlative degree okay saddexdaa qaab ayaynu isticmaalaynaa markaynu wax isbarbardhigayno darajada koowaad waxaa la yidhahdaa baan ku simple degree talabaadna waxaa la yidhahdaa comparative degree saddexaadna waxaa la yidhahdaa superlative degree haddaba laba qaab baa loo sameeyaa mid waxaa la yidhahdaa adjective degree of comparison regular adjective degree of comparison waa heerka isbarbardhigga sifooyinka sharciga leh midna waxaa la yidhahdaa irregular adjective degree of comparison waa heerka isbarbardhigga sifooyinka aan sharciga lahayn waxaan ku horeynaynaa haddaba heerka isbarbardhigga sifooyinka sharciga leh adjectiveka originalka ee aad haysato ayuunbaa waxaad ku daraysaa er iyo r iyo more superlativekana waxaad ku daraysaa est iyo st iyo most aan ku celino regular adjective degree of comparisonka waxaa la samaynayaa ereyga originalka ee aynu haysanno ayuunbaynu raacinaynaa waxaan raacinaynaa waxaan raacinaynaa r iyo er iyo waxaan raacinaynaa more sidoo kale waxaan raacinaynaa st iyo est iyo most intaas ayaynu ku daraynaa adjectiveka originalka ee aynu haysano waa si aynu u samayno comparative iyo superlative here are the rules waa kuwan sharciyadii haddaba sharciga koowaad baynu ka bilaabaynaa if the adjective has one syllable haddii ereyga adjectiveka uu hal dhawaaq leeyahay markaad akhrinayso adjectivekaaga originalkun er raaci marka dambena est raaci tusaale imika ereyga inoo qoro waa maxayna waa tool si aan uga dhigo ka dheer ereygii aynu haysanay originalka ahaayo tool ayuun baan xagga dambe er ka raacinaynaa dabadeedna tool waxay noqonaysaa toller ka kalena waa la midoo ereygii originalka aynu haysanay ayuun baan xagga dambe ka raacinaynaa esto tool waxay noqonaysaa markaa toolest iminka kanaaf soomaali waa dheer ka dheer ugu wada dheer saddexdoodan marka wax la isbarbardhigaya baynu isticmaalaynaa ka labaad aynu ku noqono haddii ereyga adjectivekii uu ku dhammaado if the adjective ends in don't add er but you have to add r only also don't add est but you have to add st only haddii ereyga adjectiveka aynu haysanno uu ku dhammaado xarafka sida ereyga large what's the last letter of this word so when you are going to make comparative degree of this word don't add er but you have to add r only and it become larger okay the last don't add est but you have to add st only large here is the last letter and it is so we add st only and it becomes largest sharciga labaadina waa ka way sharciga saddexaad if the last three letters of your word become cvc I mean consonant vowel consonant double the last consonant before you add also before you add est haye maxaynu nidhi
haddii saddexda xaraf ee u dambeeya ereyga adjective-keeda haysataa uu noqdo CVC CVC maxaynu jeednaa consonant iyo vowel iyo consonant shibanaha u dambeeya ayaynu double ka dhigaynaa sida imika tusaalaan fat soo may hayn T-da waa inaynu laba laabnaa double T baynu ka dhigaynaa dabeedna markaad double T ka dhigto ayaad ER raacin doontaayo waxaynu ka dhigaynaa markaa fatter tan kalena waa la mid iyadana sidii si leeg baynu samaynaynaa xarafkan u dambeeya ayaynu laba laabaynaa dabadeedna waxaynu raacinaynaa ayaynu u dambaysiinaynaa EST waka waayahay sharciga afraad khayr la ardayga haddii ereyga adjective-ka haysana uu ku dhamaado y delete the y then change into I and add ER also add EST haddii ereyga adjective-ka original-ka aad haysato uu xarafka y ku dhamaado sida happy the last letter of this adjective y we lose it xarafka y-da aynu meesha ka saaraynaa markaynu xarafka y-da meesha ka saarno ayaynu ku bedelaynaa I dabadeedna imikaynu ku daraynaa ER waka kana waa la mido xarafkii y ayaynu meesha ka masaxaynaa dabadeedna xarafka y waxaynu ku bedelaynaa I markaad ay ku bedelato waxaad raacisaa EST oo waxay noqonaysaa happiest sharciga u dambeeya ee shanaad ee qaybtan kaga baxayna wuxuu noqonayaa haddii ereyga adjective-kii uu laba dhawaaq iyo wax ka badan yeesho ha raacinin ER iyo R waxaad raacinaysaa more iyo must tusaale ahaan imika waxaan qoraynaa important ereygan bal dhawaqiisa u fiirsada waa important maadaama more than two silent laba dhawaaq wax ka badan leeyahay kaliya waxaynu samaynaynaa ereygii baynu more xagga hore ka raacinaynaa dabadeedna wuxuu noqonayaa more important ayuu noqonayaa more important kana wuxuu noqonayaa most important waa muhiimsan ka muhiimsan ugu wada muhiimsan shantan sharci ayaa waxa la isku dhaadaa regular adjective degree of comparison waa heerka isbarbardhigga sifooyinka sharciga leh sharciga la markay leenahay waxaan idinku yiri ereygii original-ka aynu haysanay ayuun baynu ER iyo R iyo more raacinayna marka dambana ST iyo EST iyo most sida loo kala raacinayana waa halkan inoogu qoran haddaba qaar baa jira la irregular adjective degree of comparison waa heerka isbarbardhigga sifooyinka aan sharciga lahayn iyaga waynu bedelaynaa halkaynu ER iyo R iyo more ka raacin lahayn waana kuwan haddaad haysato imika positive degree oo adjective-kii koobaada marka aad doonaysa inaad ka dhigto comparative degree oo darajadii labaada sidoo kale aad doonaysa inaad ka dhigto superlative degree oo darajadii saddexaada waxaynu samaynaynaa irregularka iyagu waa la bedelayaa sidan baa loo bedelayaa tusaaleaan waxaan soo qaadanaynaa good ereyga good wuxuu noqonayaa better marka dambana wuxuu noqonayaa best iyaga waxaa la dhahdaa irregular adjective degree of comparison waa heerka isbarbardhigga sifooyinka aan sharciga lahayn way bad waxaan odhanaynaa worse halkana waxaan ka dhigaynaa worst okay ereygan ku xigsiinna waxaa ka mid ah imika little waxaan xaggan ka dhigaynaa less halkana waxaan ka dhigaynaa least kuwan iyaga ma raacinayno ER iyo R iyo EST iyo ST laakiin waynu bedelaynaa saasaana loo bedelaya okay haddaba waxaan u baahanay goormaa la doortaa comparative-ka goormaa la doortaa superlative-ka goormaa la doortaa simple degree-ga oo darajada koowaad oo positive iyo negative bay yeelanaysa tusaaleynu soo qaadanaynaa haddii waxa la isbarbardhigayaa ay noqdaan intaas waa inta casharkeena ugu muhiimsan inaad si fiican ila fahantaan baan rajaynayaa haddii waxa la isbarbardhigayaa ay noqdaan laba qof laba shay laba xayawaan oo kala duwan
waxaynu isticmaalaynaa comparative degree waxaana lagu aqoonsadaa ereyga then haddaad ereyga then intaas waxaynu la isticmaalaynaa ereyga then haddii jumladda soo gasho waxa la isbarbardhigayaana ay noqdaan two persons animals things laba qof laba shay laba xayawaan waxaynu dooranaynaa comparative degree waa ereyga wata er ama r ama more haddii kalena kuwan dhexe ee better worse less saas oo kale tusaale imika waxaan soo qaadanaynaa sidan oo kale waxaan leenahay axmed ninka la yidhaahdo Ahmed is cleverer. Ahmed is cleverer than his brother. Ahmed walaalkii uu ka xariifsan yahay. Imka halka ereyga dan bay noogu jira. Waxa la isbarbardhigayaana waa laba qof. Waa Ahmed iyo walaalkii. Maadaama laba qof la isbarbardhigayo waxa saxa comparative-ka oo way naga raacini er. Oo way naga Ahmed is cleverer than his brother. marka haddii waxa la isbarbardhigayaa ay laba qof laba shay laba xayawaan comparative-ka doorta oo waxa doorataan ereyga er iyo more wata goormaynu superlative-ka dooranayna haddii waxa la isbarbardhigayaa laba ka bataan article-ka de ayaa la isticmaalayaa ereygaas hadduu meesha yimaado superlative-ka saxa ereyga est-da ama st-da ama most-da wata waxa la isbarbardhigayaana waa inay laba ka bataan tusaale waxaan leenahay sidan oo kale afnaan is the prettiest Afnan is the prettiest girl in the family Afnan waa inanta ugu quruxda badan la qoyska saas oo kale ereyga meesha inoogu qoran doonaya wax weeyaan prettiest sorry halka ay baan ka tagay prettiest maadaama waxa la isbarbardhigayaa inan iyo qoys dhan ay yihiin waxaan isticmaalnaa superlative degree-ga oo way naga isticmaalay prettiest okay haddaynu ka shaqeyn karnay imtixaanka ayaan u malaynayaa maadaama aynu isla fahnay ereyga comparison ereyga adjective saddexda nooc ee isbarbardhiga in er iyo r iyo must lagu darayo haddii waxa la isbarbardhigayaa laba yihiin ka dhaxay comparative-ka inoo doora haddii laba ka badan yihiin waxa doorataan superlative-ka okay hadda imtixaankii baynu ka shaqeynaynaa oo aynu isla eegaynaa su'aalihii imtixaankuna saddexdan bartan noogu qoran bay haayeen ka koobaad aynu isla eegna haddaba horta halkaaba eega halkaa maxaa ku jira ereygii dan maadaama ereyga dan ku jiro maxaa saxa baynu nidhi ma simple degree-ga mise comparative degree-ga dee maya comparative degree afartan haddaba keeba comparative degree-ya waa ka er-ta wata waxaa saxa markaa waxaana la isbarbardhigayaa he is richer than his friend saaxiibkii uu ka maalqabeensay uu ka taajirsay marka ereyga saxdii wax weeyaan waa richer oo ereygu rich buu ahaa er baynu raacinayna marka tan labaad eega your daughter is dash than my daughter halkan ereyga dan baa yaala waxa la isbarbardhigayaana waa laba hablood maadaamay laba yihiin waxa saxa shorter ka er-ta wata saxa way Ahmed is the dash boy in the class maadaama la isbarbardhigaya inan iyo galaas dhan oo ereygii da'na yaalo waxa saxa tallest oo superlative-ka intaas mid ku soo ceeshan doontaan haddii ilaahay qadaro insha Allah waa inoo casharkan xiga iyo sidaa iyo isla socod wanaagsan aad baa mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh